Soomaaliya iyo Turkiga ayaa gaaray heshiisyo cusub oo ku aadan in la horumariyo dhanka iyo dhaqaalaha Soomaaliya iyo amniga iyadoona mas'uuliyiin ka tirsan dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga heshiiskaas ay ku dhameystireen waddanka Turkiga. Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi, wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda xukuumadda Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda federaalk Soomaaliya ayaa Turkiga tegay iyagoona halkaas ku gaaray heshiisyo kala duwan oo Turkiga uu ku ballaarinayo heshiisyadii hore ee amniga Soomaaliya. Iskaashiga cusub iyo dhaqdhaqaaqyada ka socda Geeska Afrika ayaa waxa uu keenay in Turkiga uu dardar geliyo arrimaha la xiriira heshiisyadii hore ee dhanka Soomaaliya uu la galay. Mareykanka oo la sheegay in Eritrea uu cunaqabatayntii ka qaaday isla markaana doonayo in heshiis dhameystiran uu la gaaro ayaa markaan waxa uu bilaabay sidii dhaqdhaqaaqyo kala duwan loo sameyn lahaa iyadoona mas'uuliyiin ka tirsan dhinaca iyo Washington ay bilaabeen sidii ay u raadin lahaayeen saldhigyo iyo qorshe kala duwan oo arrimahaasi la xiriira. Xubin sare oo ka tirsan dowladda federaalk Soomaaliya ayaa dhankiisa waxa uu tilmaamay in ay socdaan dhaqdhaqaaqyo guud oo arrimahaasi la halmaala waana mid keentay in Muqdisho iyo Ankara ay markaan bilaabaan xoojinta iskaashigooda xooggan. Safiirka Ingiriiska oo fadhiya arrimaha Soomaaliya iyo xubno kale oo reer galbeed ah ayaa dhowaan walwal ka muujiyay diyaaradaha casriga ee Turkiga ee garoonka diyaaradaha Aadan Cadde Muqdisho mar walba ku soo dega iyo in mas'uuliyiintan ay bilaabeen sidii loo bilaabi lahaa qorshe weyn oo ay kaga baaraandegayaan arrimaha dhanka siyaasadeed ee hadda soo kordhay. Sarkaal sare oo ka tirsan dowladda federaalk Soomaaliya ayaa waxa uu qudhiisu tilmaamay in ay socdaan dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ee arrimahaasi la xiriira iyadoona mas'uulkaas uu hoosta ka xariiqay in la wado dhaqdhaqaaqyo kale oo ku saabsan qaabka loo gaari karo howlgallada guud ee ciidanka dowladda federaalk Soomaaliya ay wadaan kaas oo haddii la gaaro hadaf ahaan la kordhin karo dhanka amniga iyo in la sii xoojiyo dadaalada kala duwan ee lagu soo saarayo kheyraadka dabiiciga ee dhanka Soomaaliya. Xubin sare oo ka tirsan dowladda federaalk Soomaaliya waxa uu dhankiisa tilmaamay in maalmihii u dambeeyay dowladda federaalk Soomaaliya in ay xoogga saareysay abaabulka iyo qorshaha lagu dhisayo laguna qarameynayo ciidanka Soomaaliya taasoo keentay in mas'uuliyiinta dowladda federaalk Soomaaliya in ay bilaabaan sidii ay u raadin lahaayeen xogaha iyo macluumaadka guud ee arrintaas la xiriira. Dowladda federaalk Soomaaliya waxa in muddo ay waday sidii loo abaabuli lahaa dhaqdhaqaaqyada guud ee dhanka howlgallada socda iyadoona mas'uuliyiinta dowladda federaalk ay tilmaameen in ay wadaan abaabulkaas iyo sida loo gaari karo waxaana xubnaha dowladda federaalk Soomaaliya ay dhankooda tilmaameen in ay wadaan dhaqdhaqaaqyo iyo isku dayo kala duwan oo arrintaasi la xiriira. Sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalk Soomaaliya waxa uu dhankiisa tilmaamay in markaan ay wadaan abaabul iyo dhaqdhaqaaqyo guud oo la xiriira dhanka iyo kordhinta howlgalladaasi iyadoona dowladaha Soomaaliya iyo Turkigu ay ku ballameen in la ballaariyo heshiisyada kala duwan ee arrintaasi la xiriira. Dowladda federaalk Soomaaliya ayaa qudheedu waxay tilmaamtay in ciidamada badda Soomaaliya ee tababarka qaatay iyo ciidanka kale ee Turkiga laga soo wado kuwaas oo awood buuxda u leh in ay taangiyada kaxeeyaan si la mid ah ciidamada Turkiga ee taangiyadaasi loo sameeyay inay keenayso in awoodda military ee Soomaaliya sare u qaadmayso taa oo haddii dhaqangalkeeda la eego suurgal weyn ka dhigaysa in Soomaaliya ay sameyso dhaqdhaqaaqyadii ugu xoogganaa abid ay la ka sameyso dhanka badda bariga iyo hawada taasoo keenaysa in ciidanka ay ka dhisnaan karaan saddexdaas jiho oo ciidamada dowladda federaalk Soomaaliya diiraddu ay saarayaan. Turkiga waxa uu raadinayaa sidii uu u ballaarin lahaa qorshaha guud ee Geeska Afrika iyadoona mas'uuliyiin ka tirsan Ankara ay sheegeen in ay wadaan abaabulka dardargelinta dekedaha iyo goobaha kale ee muhiimka ah oo ay ka sameysanayaan dhanka iyo Soomaaliya haddii ay arrintaasi u suurageli weysana ay bilaabayaan qorshe guud oo ay ku xoojinayaan ciidanka Soomaaliya. Turkiga ayaa Soomaaliya dhowaan u abaalguday waxaana uu siiyay 30 milyan oo dollar iyo dhul weyn oo laga dhisayo safaaradda Soomaaliya dalkaasi maadaama Soomaaliya ay siisay dhulkii ugu ballaarnaa Turkiga abid uu ka furto safaarad
waa weliba meel ka baxsan dalkiisa maadaama Soomaaliya iyo Turkiga cilaaqaadkooda uu gaaray heer labada dhinac ay isdhexgalaan. madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa lagu wadaa in uu Soomaaliya soo gaaro iyadoona mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ay isku diyaarinayaan qaabkii ay u soo dhaweyn lahaayeen madaxweyne Erdogan. ciidamo Turki ah oo wata qalab iyo gaadiid casri ah ayaa gudaha Muqdisho iyo deegaano ka baxsan sida badda iyo sidoo kale saldhigyo gaar ah ku sugan iyadoona dowladda federaalka Soomaaliya maalmihii la soo dhaafay ay aad u dardargelisay tababarka ciidamada kuwaas oo u badan dhalinyaro qaarkood aanay weligood gelin qaybaha kala duwan ee ciidamada kuwaas oo lagu sheegay inay yihiin dhiig cusub oo ciidanka Soomaaliya ku soo kordhi kara. meelaha inta badan ciidankaasi lagu tababarayo ama laga dhisayo waa dhanka badda, cirka iyo ciidanka difaaca culus ee Soomaaliya si ay uga hortagaan xadgudub walba oo ay ku sameeyaan dalalka doonaya in ay kala qaybiyaan dhinaca Soomaaliya. wixii warar iyo dhacdooyin arrimaha ka soo kordha baahinteeda tan xigta warbaahinta Xuraasi ku daawo waad ku maasantahay daawashadii la socodka wararkayga.